halkani waa wadanka Cumaan. Wadanka Cumaan ayaa ku yaala dhanka bari ee dalalka loo yaqaan Khaliijul Carab, waxaanu xuduud la leeyahay dalalka Imaaraadka Carabta, dalka Boqortooyada Sacuudiga iyo dhanka koonfureed oo xuduud kale leeyahay dalka Yemen. dalka Cumaan ayaa sidoo kalena ku yaala cidhifka galbeed ee badweynta Hindiya, waxaanu leeyahay xeebta ugu dheer dalalka Khaliijka. haddaba telefishinka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland oo dhowaan booqday dalka Cumaan gaar ahaan magaalada Salaala ayaa halkaa waxaan ku soo aragnay kuna soo ogaanay in dalka Cumaan uu yahay dalka labaad caalamka ee loo dhoofiyo xoolaha nool sida geela, adhiga iyo lo'da ka yimaada geeska Afrika gaar ahaan deegaanada Soomaalida, iyada oo lagu qiyaasay xoolaha yimaada magaalada Salaala in ay kor u dhaafaan 100,000 oo neef bishii. haddaba si aan wax uga ogaano dhoofka xoolaha ee yimaada magaalada Salaale ee dalka Cumaan ayaa waxaan wax ka weydiinay ganacsatada iyo shaqaalaha maalinlaha ah ee ka howlgala maxjarada waaweyn ee ku yaala magaalada Salaale ee dalka Cumaan. kulanti waxaan xiisalay dhammaantiin baa khiyaaray meel wada dafaha caalamka joogtaan. waxaan ku suganay magaalada Salaala maxjaradeeda mid ka mid ah ayaa waxaan ku suganay halkan. haddaba magaalada Salaale oo ku taala wadanka Cumaan ayaa waxa ka soo dega arag iyo geel iyo lo intaba laga keenay geeyigeena. waxaana jira shaqaale dhalinyaro ganacsato ka wada shaqeysa. waraysigii horeyna waxaan ka qaadayaa khadar oo ka mid ah dhalinyarada ka shaqeysata maxjaradan arigeena la keeno. marka koowaad khadar ku soo dhaweey telefishinka qaranka Soomaaliland. وعليكم السلام dalmar waa soo dhaweynaa aad iyo aad baan u mahadsan tahay waraysiga aad qaadaysid. halkani waa magaalada Salaala gaar ahaan wadanka Cumaan ku taala. meesha aad joogtaan ku sugan tahay waa maxjarkeedii xoolahani waxay ka yimaadaan wadankeennii Berbera iyo Boosaaso labadaba way ka yimaadaan. xooluhu waa aragtay waa kuwa halkan cunada lagu siiyaa, xolba lagu siiyaa, laga sii raraa. wixii magaalada laga iibsadana magaalada loo raraa. waa sida mudane khadar waxaad iiga warantaa ad waxaad ka mid tahay dhalinyarada ka shaqeysata. bal ka war shaqada aad halkan shaqo ma heshaan daily ah oo xoolada idinku filan wadankii ma ka yimaadaan? xoolaha nagu filan iyo kuwa naga badan waa ka yimaadaan. alxamdulillaah rabbil caalamiin. halkan aan ku noolahay magaaladan ku noolahay halkan xoolahan waa xoolaheeni xoolaha dawladdu leedahay Cumaan leedahayna anoo kaba shaqeynay xoolaha iyaga oo ka shaqeysanaa. marka inta lagu qiyaasaa wiigi inta leg baa lagu qiyaasaa ama bishii inay yimaadaan halkan ama xoolaha yimaada waa noocee? waa 100,000 oo neef ay yimaada iyo ka badanba loo iyo ariyo wax walba isku jira yimaada. marka intaas ay timaada isbuuci walba. marka arigani ma Cumaan oo kaliya ayaa loo soo ganacsi keenaa mise waxa weeyaan waa ari loo iibgeeyo wadamada Khaliijkana halkan waa looga geeyaa? halkan xoolaha yimaada way ka sii tagaan Khaliijka oo dhan bay tagaan oo Qatar leedahay, Bahrain leedahay, Kuwait leedahay, dhammaantood halkaas ay tagaan. adigu imika muddo halkan ka shaqeysanaysay wax isbedel miyaad aragtay inuu soo badanayo xoolihii ama inuu soo yaraanayo? waan la yaabnaa xoolaha inta leeg xay ka imanayaan. anaga halkan markay nagu yimaadaan uma aragnaa. xoolahani waa xoolo ciidda ka badan baa yimaada halkan yimaada. marka wadankeeni baan ka yimaada. aad baan ku salaamayaa dadweyne fara badan baa maanta ku daawanaya. bal haddii aad ka sheekayso tiraahdo Salaala waxaad caan ku tihiin baad leedahay xoolaha nool ee ay iibisaan. xoolaheena caan ku nahay. xoolaheena caan ku nahay. dadka reer miyiga maxaad u sheegaysaa ee xoolo dhaqatada ah? waxaan leenahay nimcada Ilaahay siiyay ka faa'iideysta. xoolo waa lama huraan waxa adduunka oo dhan aanu ka iibino. waa nimcada kaliya leenahay. waa tahay daawadayaal wali waxaan ku guda jirnaa socdaalkii aan ku tagay magaalada Salaale ee wadanka Cumaan. wadanka Cumaan dad badani ma oga, laakiin xoolo aad u fara badan ayaa geeyigeena ka yimaada. waxaan halkan jecelahay maadaama aan booqday qaybtii maxjarka in aan bal ka waraysto sida uu ganacsigu u socdo. daahir oo ka mid ah ganacsatada xoolaha ee halkan keenta. mudane daahir ku soo dhaweey telefishinka qaranka Soomaaliland. ugu soo dhawahay dalmar aad iyo aad baad mahadsantahay walaal. sidoo fiican aanu kulanay. marka haddaan ganacsanahay sidaad noo soo booqatay aad iyo aad baan kaaga mahadnaqaynaa. daahir waxa aan ognahay dad badani ma oga. anigoo laf ahaanteedu markii hore waxaan moodi jiray wadanka Sacuudigu inuu yahay nambarka koowaad ee xoolaha Soomaalidu ay aad u tagto. markii aan halkan soo booqday waxaan ka war helay in xajmi aad u fara badan xoolaha halkan ay keenaan ganacsatadiinu. bal waxaad iga warantaa xoolahan aad keentaan Cumaan maxay ka kooban yihiin? dalmar waa sidaas sheegtay horta xooluhu Cumaan Sacuudiga ugu banaan jireen, laakiin imika dalka Cumaan aad bay ugu badan yihiin. marka waxa ka mid ah looda iyo adhiga. marka labaduba aad bay ugu socdaan.
markaa waa laf dhabarta keliya ee Soomaalida ay ku nooshaana waa xoolaha markaa kaalinta labaad ee Sacuudiga waxa soo gasha Cumaan ba soo gasha marka xoolahani waxa aan maqlay waxay ka yimaadaan Berbera ilaa Boosaaso ma labada magaalo ugu badan iminka xoolaha ay halkan keentaan waxaa saas egtay weeyaan Berbera waxa ugu badan iyo Boosaaso markaa xooluhu ilaa kilka shanaad bay ka yimaadaan Somaliland iyo Puntland iyo Soomaaliya oo iyadana maxaan ku dhahaa xamarna way ka yimaadaan marka aad iyo aad bay markaa wanaagsan yihiin ma sha Allah aad iyo aadna si fiican u socdaan markaan si fiican waan uga shaqeynaa waxa aan maanta markii aan booqday xoolaha sida imikaba ka muuqata ama kamarada lo' baan aragnay aad u qurux badan marka lo'dan xagii horta lo'dan ka timay sidan u quruxda badan Somaliland iyo Puntland bay ka timaadaa iyo gobolada dhexe Soomaaliya marka adiguna halkaas ku iyo Soomaaliya ka yimaada sida badan qayba kilka shanaad ka timaad Itoobiya qayb ka timaadana way jirtaa marka aynka weyn xoolahan runtii marka aan maanta sida ka muuqataba caafimaad aad xataa ariga markaan booqday inteen leegba jidka ku soo jiraan markay Berbera ka soo baxaan oo kale jidka wuxuu ku soo jiraa 4 habeen iyo 4 maalmood 4 habeen iyo marka uu soo qadimo weeyaan marka qaarkoodna 5 week bay qaadataa 5 habeen iyo 5 maalmood marka maxaa ku keentaan ma markab baa ku keentaan bal iga waran iyadana waqtiyada kuleylkii waxaan ku keenaa markab baan ku keenaa waqtiyada kale aan kuleylku una jirin waxaan ku keenaa dooyanka lagu keenaa marka aynka weey iyadana bal waxaad iga warantaa miyaad wax dhibaato kala kulantaan dawladda Cumaan oo kale ganacsiga ka imanaya yani geeyga Soomaali degta ee ama lo ahaato ama ari ahaato wax carqalad amiyad kala kulantaan ay dalmaro wallahi wax dhiman ku sheego oo halkay aan kala kulanno ma jirto aad iyo aad u wanaagsan alxamdulillah ma sha Allah si wanaagsan oo uga shaqeynaa si wanaagsan marka macaamiladu u socotaa maxaan ku dhahdaa Cumaan iyo xoolaha Soomaalida ka yimaad waa laf dhabarta kaliya ummadeenu ay ku talaabsato ama ay leedahay haday tahay xoolaha nool ma u malaynaysaa in aad u aragto in xajmigan laga kordhiyo dadku xoolaha ay dhaqdaan dadku ay samaystaan beero xoolaha lagu dhaqo maxay tahay fariinta aad u soo jeedinaysaa ummadii Soomaalida ee xoolo dhaqatada ahayd waxaan Soomaalida soo jeedinayaa horta waxaynu ku nool lahayn xoolo weeyaan iyo beero marka xoolaha laga tago waxay noo soo raacay beeraley weeyaan marka waxaan soo jeedin lahaa dadku in ay xajmiga saaraan xoolaha ay maxaan ku dhahdaa si fiican uga shaqeeyaan daryeelkooda iyo xanaanayntooda iyo maxaan ku dhahdaa caafimaadkooda ayaan soo jeedinayaa ugu dambeyntii xoolahan aad halkan keentaan ama loo ahaato ama ari ha ahaatee ma waddanka Cumaan oo kaliya ayaa isticmaala mise waxa weeyaan Khaliijul Carab oo dhan baa loo iibgeeyaa halkan Cumaan waxa soo galay Cumaan baa isticmaasha marka marmar ay Bahrain uga baxdo way jirtaa ama meel kale uga baxdo way jirtaa laakiin xoolaha cashmiga u badan wuxuu ku socdaa Cumaan ku socdaa qiimo fiican ma leedinka siistaa markaa aad nacamha ma sha Allah aad iyo aad wanaagsan ugu dambeyntii ma jirtaa fursado kale oo is leedahay waa la geyn karaa dalalka kale Carabta ama ilaa iyo wadamada kale ee ilaa China la geyn karaa xoolaheena ma jiraa fikir noocaas ma ku jiraa waxa way dadaalka Soomaalidu taas ku jiraa haddii Soomaalidu dadaal caynkaas keento meel kasta geyn kartaa marka Soomaalidu waa inay dadaal keento xarakaad xoolaheeda dal kastaba maxaan ku dhahdaa ku socodsiiso oo markaa sabcad ku soo jiido taas markaa inaga nagu xidhan tahay walaal aad iyo aad baan kaaga mahadcelinayaa Axmed iyo oo isaguna ganacsada ah Axmed adiguna wax kelmada maad ku daraysaa oo dhameystira inta daahir sheegay ayuu insha Allah wax ku leeyahay waxaan leeyahay insha Allah ganacsiga xoolaha waa sector aad u muhiim ah iyaga iyo beeruhu inaynu sii xoojino sii dhiirigelino la dhiirigeliyo wax soo saarkooda intaas maan ku dari lahaa ganacsatada xoolaha ayaa noo sheegay in ay raadinayaan suuqyo waaweyn oo kale si markaa xoolaha Soomaalidu ay deegaano fara badan iyo dalal horle ay u tagaan taasoo guul ballaaran u ah xoolo dhaqatada ku nool geeyga Soomaalida gaar ahaan geeska Afrika dalmar warbaahinta qaranka magaalada Salaala dalka Cumaan